waxaa maanta si rasmi ah loo dhagax dhigay bilowga mashruuca biyo balaadhinta ee laga hirgelinayo magaalada Burco isla markaasna iska kaashadeen shirkadda SBI Coca-Cola Somaliland iyo wakaalada biyaha ee Burco waxaana munaasabad loo sameeyay dhagax dhigitaanka mashruucan biyo balaadhinta goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Tuudeer Maxamed Muuse Diiriye maayirka degmada Burco mas'uuliyiinta wakaalada biyaha Burco taliyaasha ciidanka qaranka iyo booliiska gudida biyaha Burco iyo mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan warinta halkaasi ka hadlay maarayaha wakaalada biyaha Burco يوسف ديريه كاسو كور بحياه ميدها مشروعا ولا يهي بلشده reer Burco waxaan filayaa mashruucan de horeynu u daahfurnay waa mashruuci Coca-Cola ee balaadna mashruucanu marka ugu horeysa cidda maal gelisay waxa weeye waa kamiriga Coca-Cola waxa darafka ah oo 20% darafka ah oo sheerka dhaqaalihiisa wakaalada biyaha oo 20% waxaanu codsanaynaa wakaalada biyaha haddaan nahay maamul gobol maamul degmo mas'uuliyiinta wasaaradaha taliyaasha ciidamada nooc kasta yihiin si mashruucan uu hirgalo oo mashruuc kalena uu daba joogo iyagu leeyihiin sanadkiiba marbay bixiyaan marka haddii ilaahay ka dhigo soo mashruucan uu najaxo waxaanu rajaynaynaa oo cid walba ka codsanaynaa inuu maalinka maanta baalaha la iska taago soo hirgalo taliyaha ciidanka qaranka gaar ahaan guutada 12aad Axmed Hurre taliyaha ciidanka booliiska gobolka Tuuleer Gaashaanle Cabdi Muuse Cabdullaahi Abwaan Cismaan Ibraahim Mursame Hurre gudoomiyaha gudida biyaha Burco oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay taabteen faa'iidooyinka kala duwan ee mashruucan uu leeyahay bulshooyinka reer Tuuleer iyagoo sidoo kale bulshada reer Burco ku guubaabiyeen meel uga soo wada jeestaan cidda caqabada ku noqon karta hirgelinta mashruucan biyo balaadhinta xoogaa maanu ka maqnaa Burco markaan soo noqday isbedel baan ugu yimid horumar fara badan oo biyuhu kamid yihiin wadooyin baan ugu yimid ayadana la sameeyay dhowr bilood aan maqnaa oo ay dawladda hoose hirgelisay bara saabkuna madax uu ka ahaa dhamaantood waxay kamid tahay in horumarka dalka ka socdo imika waxaan moodaa xukuumadii hore soo maray dalka iyo kuwa imika jireen wax ku kala duwan yihiin halkan maalin kasta mashruuc baa la furay mid baa la dhex dhigaya horumar un baa ka socda waxaana wanaagsan kulli marka horumarku socdo in dadku ka wada qayb qaato hawsha maanta loo diyaar garoobay ee wax qabadka wakaalada biyaha ee in wadanka laga qabtaa anagu dhinacayaga ciidan ahaan amniga waan u diyaar garownay inaanu la shaqeyno ciidankii ka hawlgali lahaa iyo saraakiisha ka hawlgali lahaydna waanu u diyaarinay waxay maanta maraysaa reer kasta oo Burco jooga inuu aqalkiisa gudihiisa qudrada reerkiisa ku filan ka samaysto labada balood ee dhisan ee inta yar daaradii ka banaantay daarada 10 geedo aad ka beerto oo aad biyo u heshaa wax qoyskaaga ku filan adigaan dibad ka ganacsi adan doonanba oo aad beer dibadeed samaysan waxaan markaa dadweynaha ka codsanayaa inay biyahaas inaga inoo yihiin inaynu biyo helo danteena ku jirta reer kasta oo kamida degmada Burco degan inuu biyo helo waxa ku jirta danteena marka cid kasta oo ay ku beeganto ama cid kasta oo maxaa la yiraahdaayay qasabada dhulka la mariyaa dhibaato maaha haday waqooyi tahay iyo haday bari tahay haday galbeed tahay haday bari tahay gacmaha lagu cabeeyay storage-kina waa weheliye waxa jirta laba eelo qaraad ba ku jira biyo ay dhanaan biiladay labadaana waxaanu dadweynaha reer Burco ugu bishaareynaa inay ka hadhayaan marka biyaha imka la xiriiriyo oo ceelashii macaana oo dhowr iyo 10 ay isku soo hadhayaan labada ceele midna wakaalada ku yaal midna jaalida ku yaal biyaha qaraadheeya way ka hadhayaan sida talada maamulka ay wakaaladu tahay gudoomiyaha gobolka Tuuleer Maxamed Muuse Diiriye iyo maayirka degmada Burco iyo ku gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen inay ka maamul gobolahan ay garab taagan yihiin mashruucan biyo balaadhinta ay iska kaashadeen wakaalada biyaha Burco iyo walibana shirkadda SBI Coca-Cola Somaliland hadalka horta runtii waxa dhameeyay raggii horeeyay hal qodob ma sheegayaa reer Burco iyo qarankaba ummadda reer Somaliland waxaan leeyahay gobolka Togdheer wixii la idin keeno ee mashaariic idin yimaada ka faa'iideysta oo say tahay uga faa'iideysta soo dhaweeya dhinacyada ka gala gacan si ayaan leeyahay biyuhu waxa la yidhi waa noloshuna waa biyaha waxa weeye barnaamijkii la oran jiray biyo ballaarinta oo magaalada Burco
dhammaanteed baan la doonayay inay gaadhaan iska daa burco keliya maaha xitaa ADB-yada ay la gaadhsiiyo sidaa uu maarayo sheegay waxaa naga caawinaysaa tan iminka maanta aynu wadno shirkadda la yidhaahdo qolada Pepsi Cola baa naga caawinaysa waana ku mahadsan yihiin aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa inay wax weyn tarto barnaamijkan cid alaale ciddii ka qayb qaadatayna waanu u mahadnaqaynaa oo ilaahayna waxaanu ku rajaynaynaa hawshaas inay noqoto hawl lagu najaxo waana najaxaysaa insha allah maadaama aan haleela ka taagannahay وخالد بكيلي شبكة عالمية اعتراف نيوز برعو.